السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marabtaa inuu alla kuu furo albaabada risqiga. halkani waa kanaalka iftiinka, magaceyguna waa diin xuseen shaab. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta saaxiibayaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marabtaa inuu alla kuu furo albaabada risqiga. wiil yar baa u yimid nabi muuse calayhi salaam oo ka codsaday inuu ilaahay u baryo inuu siiyo maal badan. nabi muuse wuxuu weydiiyey, ma waxaad rabtaa inuu ilaahay hodan kaa dhigo 30 sano hore cimrigaaga mise 30 dambe? wiilkiina wuu fikiray, wuuna ku wareeray khiyaarku uu dooran lahaa. kadibna wuxuu doortay 30 sano hore inuu noqdo hodan ama maalqabeen. markii la weydiiyey maxaad u doortay qaybta hore nolosha, wuxuu yidhi 2 sababood ayaan u doortay. ma raba inaan khayrka dib u dhigo, maadaama aan hubi inaan noolaan doono 60 sano in ka badan. kaan ayaan hubaa haddaba, sidaas ayaan u doortay qaybta hore ee noloshayda. wuxuuna iloobay inay doqonnimadu leedahay dacfi fara badan, una baahan yahay maal u sahla nolosha. nebi muuse ilaahay buu baryay inuu maal badan siiyo 30 sano ee hore noloshiisa. isla markiina wuxuu helay maal aad u fara badan oo kaga yimid dhinac kasta. wuxuu noqday nin maalkiisu farbatay, magaciisu fiday meel kasta oo laga yaqaano. wiilkii yaraa ilaahay wuxuu u waafajiyey inuu u kaalmeeyo dadka masaakiinta ah, isagoo u samayn jiray ganacsi yaryar, warshado ay wax ku soo saartaan, inuu u guriyo dhalinta aan haysan qarash ay ku guursadaan. waqtigii wuu socday, 30 sano way dhammaatay. nabi muuse wuxuu eegayay xaalka siduu noqon doono. xaalkii wiilkuna isma bedelin, balse xoolihiisu way bateen, wayna bulaaleen. nabi muuse ilaahay buu weydiiyey xaalka wiilka. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku jawaabay sida tan: waxaan arkay inuu addoommahayga u furo albaabada risqiga iyo khayrka, anna waxaan ka xishooday inaan ka xiro albaabada risqiga. haddaba qisadani maxaan ka faa'iidi karnaa? qisadani waxaan ka faa'iidaysan karnaa qiimaha ay leedahay in ilaahay la baryo. dadka wanaagsan oo la weydiisto in ilaahay noo baryaan waana midda uu sameeyey wiilka yar, aadna uu guulaystay. caqliga uu rabbi siiyey wiilka ee doortay khayrka dhow ee hadda uu ka faa'iidaysan karo. sida ay maamaha carabi odhanayso, wanaagga waxaa ugu khayrka badan kan kugu dhow mar waliba. shaqadu inay tahay jidka ugu wanaagga badan ee lagu gaaro guul oo dhan, maxaa yeelay qofka sadaqada bixinaya waa qof naxariis badan. raxmaduna waa tilmaan ka mid ah tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala. qofkaasina wuxuu aano u yahay inuu helo raxmadda iyo raalli ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala. sidoo kale asbaabaha guusha iyo darajada sare lagu gaaro waxaa ka mid ah geesinimada. markii aan ku leeyahay geesinimo, yacni kama wado inaad tahay qof geesi ah, laakiin waxaan ka wadaa inaad tahay qof u firfircoon cibaadaadka alleh. haddaba qofka muslimka ah ee jecel inuu gaaro guul iyo khayr, waxaa la gudboy inuu isweydiiyo, horta annu addoommaha ilaahay khayrka iyo wanaagga ma u leeyahay, mise waxaan ahay keligii cune, keligii hante, keligii noolaade, keligii gooste? markuu xaalku sidaa yahay, waxaa qalbigaaga nacaya, kuna habaaraya inta kula nool, inta deriska kula ah, inta kuu baahatay aad hoojisay. waxaa dhici kartaa inuu alle subxaanahu wa tacaala nimcadiisa kaa ceshado, cid kuu oysan aad weyso. saaxiibayaal, maanta muuqaalkeena halka ayuu ka egyahay. haddii aad ka heshay qisadani, like saar oo gaarsii saaxiibadaada si aan u helno walaala khayrka jacayl. waad mahadsantihiin saaxiibayaal. intaan ku kulmi doono tanii muuqaalkeena xiga, fii amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.